sanadkii 310 taariikhda miilaadiga ka hor meel u dhow deegaanka Gargamella oo dhulka hadda loo yaqaan Ciraaq waxa iskaga horyimay laba qowdood oo waaweyn oo ku dhex maray dagaal markaa kadib saameyn ku yeeshay mustaqbalka caalamka. dhinaca koowaad ee dagaalkan waxa uu ahaa boqorkii Farisiyiinta Doros oo xilliga ahaa taliyaha ciidankii u ballaadhnaa uguna awoodda badnaa dunida oo dhan. waxaan filayaa inuu watay ugu yaraan 200,000 oo ciidan ah oo uu goobta dagaalka la yimid. dhanka kale ee dagaalkan qaybta ka ahaa waxa uu sunaha ciidankii watay boqorkii dhalinyarada ahaa Alexander oo haystay dhulka hadda loo yaqaan Macedonia da'diisuna xilliga ahayd 16 sano. xilligaa waxa uu ku jiray marxaladii dhalinyaranimo laakiin waxa uu ahaa hogaamiye dhammaystiran. waxaanu dib ugu noqonaynaa taariikhda si aynu wax uga ogaano mid ka mid ah colaadihii ugu weynaa ee cahdigii qadiimka ah ee dunidu soo martay inagoo xog badan ka heli doona kaartooyinka dagaal ee colaadahaasi loo isticmaalay iyo hubkii lagu dagaalamay. waxay haysteen hub u ekaa qaabkan oo kale kaas oo ah waran si xawli leh u dhexmaaxaya hawada. haddaba kuma ayuu ahaa Alexander sidee bayse ugu suura gashay inuu ka hortago ciidan 5 jeer ka badan ciidamadiisa. ilaa maantadan aynu joogno kaartooyinkiisii waxay yihiin kuwa la isticmaalo iyo xitaa fikradihiisa qaarkood. muxuu ahaa hubka qarsoodiga ee Alexander? Gargamella waxay ahayd goob dagaal oo taariikhda caalamka bedeshay. waxaa la dhammaystiray diyaarinta safafka ciidamada waxaana uu ahaa dagaal ilaa ugu dambeynta kaasoo taariikhda adduunka bedeli doona. kowdii bishii Oktoobar sanadkii 331 taariikhda miilaadiga ka hor waxaa meesha loo yaqaan Gargamella iskaga horyimay oo ku dagaalamay labadii ciidan ee ugu ballaadhnaa uguna awoodda badnaa dunida oo kala ahaa Farisiyiinta iyo Macedonia. ciidanka Macedonia ayaa ugu horreyn soo dhaqaaqay inkastoo tiradoodu 5 jeer laab ka yaray tirada ciidanka Farisiyiinta isagoo boqorkooda Alexander ku amray inay weeraraan bartamaha ciidanka Faruska. ما هي أتيس بقولك فارسيين تدارو يصيروا دجال كوكو نستمويان يسووا هراء وتري دجالوا عيدا كمكسدونيا كولاجل الدجال كان لقوم جعابه إيسوس وحنا وجود تاويل إنه كبر مايو بقولك يردان يرضع بقولك فارسيين توحوا أمر عيدا كيس إن الدجال بدحكوا يرضان عيدا كألكسندر waxaana uu mar kale amray in la isticmaalo hubkii ugu cuslaa ee uu watay kaasoo ahaa gawaarida seefuhu ku rakiban yihiin oo loogu talagalay inay baabi'iyaan ciidanka ka soo horjeeda. isweydiintu waxay tahay Master Alexander isagoo ka hortagaya hubkii ugu khatarsanaa ma badbaadin doonaa ciidankiisa iyo carshigiisa boqortooyadii. qisada ku saabsan colaadii Gargamella waxay ka bilaabatay mandaqad yar oo degan oo ka mid ahayd dunidii qadiimka ahayd taasoo loogu yeero Macedonia iyadoo dadweynaha qaaradaasi ay deegaanka u arkayeen mandaqad buuralaya oo reer guuraa taasoo xukunkeedu ahaa boqortooyo isla markaana aan lagaga dhaqmin nidaamka dimuqraadiga iyadoo dadkeedu sida Alexander oo kale ay ahaayeen dad u tababaran inay noqdaan dagaalyahano. No! Fali Nexarchis! Alexander aabihii lagu magacaabi jiray Philip waxa uu ahaa boqorkii Macedonia isagoo ahaan jiray dagaalyahan ka soo qayb qaatay colaadihii cahdigii qabaliga ah ee qaaradda uu ku noolaa markii dambena waxa uu macallin ka noqday kulliyadda dagaalka. xilliga boqor Philip waxa uu ka dhigay Macedonia mid ka mid ah quwadihii militari ahaan caalamka ugu waaweynaa halka sidoo kalena uu inankiisa Alexander ku tababaray dagaalada iyo noocyadiisa isagoo da'diisu ay ahayd 16 sano oo kaliya. What Philip did was to remake Macedonia. waxyaabaha uu qabtay Philip waxay ahayd inuu Macedonia ka dhigay quwadda ciidan ee ugu weyn adduunka. dhabahan waxa uu bedelay qaabkii ciidanka iyo hanaankii ay u dagaalamayeen isagoo boqor Philip dhisay military buuxa oo tayo iyo farsamo leh mushaar ahaanna siin jiray lacag aad u badan.
markii uu ka dhigay Macedonia quwad caalamiya oo la ogyahay boqor Philip waxa uu degsanaa qorshe uu hogaamintiisa ku hoos keenayo guud ahaan dhulka ay Greek degaan. Alexander. quwaddii labaad ee saamaynta ku lahayd nolosha Alexander waxay ahayd hooyadii Olympias waxaana dhalay boqor lagu jabiyay dagaaladii hore iyadoo qayn ahaan soo gashay boqor Philip. sanadkii 336 taariikhda miilaadiga ka hor waxaa la dilay boqor Philip taasoo saameyn ku yeelatay isbeddel ku yimaada nolosha Alexander. Alexandra. Retermu technique. Nai. Allaho basileoso. dhimashadii boqor Philip ma ahayn joojisay kaartooyinka dagaal iyo duulimaadadii ay wadeen reer Macedonia. 20 jirkiisii Alexander waxa uu horkacay militariga dalkiisa isagoo duulaan ku ekeeyay dhinaca dalka Greega. xilli yar ka bacdina waxaa boqorkii dhalinyarada ahaa isu dhiibay magaalada Athena iyo dalalkii kale ee baaqiga ahaa. intaa ka bacdina waxaa iska raadkaatay in la joojiyo oo la iska caabiyo ciidankii Macedonia isagoo Alexander u sii dhaqaaqay dhanka bari ilaa uu ka gaadhay dhulka Farisiyiinta. The Persian Empire boqortooyadii Farisiyiintu xilligaa waxay ahayd boqortooyadii ugu ballaadhnayd caalamka manay jirin boqortooyo kale oo la mid ahayd. it stretched from the Indo-Pakistani border in the east dhanka bari waxay ka soo bilaabmaysay xuduudda India iyo Pakistan iyadoo galbeedna gaadhaysay ilaa daafaha Macedonia hoosna waxay jihada koonfureed ka gaadhaysay ilaa dalka Masar waxaana jirtay in Farisiyiintu iyo xulufadooda Iqriyiintu ay siyaabo kala duwan u qaadeen dagaallo. for well over 200 years. Persia had invaded Greece. farisiyiintu waxa ay ku duuleen Greeka iyo Macedonia xilligaa waxa ay gubeen oo ay baabi'iyeen magaalada Athens. sanadkii 334 taariikhda miilaadiga ka hor Alexander waxa uu ciidankiisii oo gaadhay ilaa 45,000 oo askari u dhaqaajiyay dhinaca boqortooyadii Furs. xilligan Alexander waxa uu waajahaya ciidankii boqorka Farisiyiinta. intaa ka bacdi waxaa bilaabatay goobtii dagaal ee xadidaysay cidda gacanta ku qaban doonta caalamka intiisa badan. ugu dambeyntii ciidamadii Alexander waxay gudaha u soo galeen dhulka ay xukumaysay boqortooyadii Farisiyiintu. warkaasi markii uu soo gaaray boqorkii Furs waxa uu dhaliyay carab ballaaran. BC. boqor Darius waxaa gaadhay fariintii muujinaysay inay ciidamadii Alexander soo galeen gudaha dhulka xukunkiisa hoos yimaada. kaartadii dagaal ee Farisiyiintu kaga hortagayeen Alexander waxay u muuqatay mid fashilan iyadoo hore loogu jabiyay dagaalkii Gerenikas. sidoo kalena la jabiyay guddoomintii magaaladii Suus. boqorkii Farisiyiintu markuu arkay guulaha xiriirka ee uu gaarayay boqorka dhalinyarada Alexander waxa uu bilaabay inuu dhisto ciidan ballaaran oo awood leh. Many of his advisors said, don't fight regular battles with the badan oo la taliyayaashiisa ay waxay u soo jeediyeen inaanu ciidanka Macedonia kula dagaalamin dariiqooyinka caadiga ah iyagoo u sheegay inay habboon tahay in loo daba maro halkii uu ka yimid oo la weeraro cuntada iyo adeegyada kale ee uu dagaalka u kaydsaday taasoo fulinteedu ku ah boqorka Darius maadaama xilligaa ay ka maqnayd kalsoonidu. a Persian king proves himself by winning battle. ka hor intii aanu dagaal u cadaysan boqorka Farisiyiinta waxa uu bandhigay Alexander inay wada hadlaan. waxaa jirtay in Darius uu fariimo badan u diray Alexander una bandhigay heshiis nabadeed iyo shuruudo kale
sida inuu maal adduunyo siinayo haddii uu joojiyo duulaankiisa amaba uu u ballan qaaday inuu dhulka boqortooyada qayb ka mid ah u jari doono iyadoo xitaa ballanqaadyadiisa ay ku jirtay inuu u dhisi doono gabadhiisa hase yeeshee jawaabihii ka soo noqonaya Alexander waxay ahaayeen kuwa jiif iyo joogba u diiday boqorkii Farisiyiinta. Patipur Khushyata Buzarka Patipur waxay ka timid Alexander waxayna ku socotaa Darius dhammaan waxaad soo bandhigtay waxay ka mid yihiin mulkigayga haddaad doonayso in aad iga difaacdo carshigaaga u istaag dagaal. Persian Empire. Kautitaja hijahaka Abarana Gargamela Khushyata Buzarka Gargamela Adishtai Adahan Abaran Gargamela. boqorkii Farisiyiintu waxa uu ka shaki qabay inay cadowgu soo weeraraan xilli habeenimo waxaana uu ciidamadiisa u dhigay qaab difaac intii lagu jiray habeennimadii inkastoo ciidamadiisu ay haayeen kuwa aanay u dhameystireen tababaradii lagama maarmaanka ah laakiin ay u badnaayeen oo kaliya kooxaha hubeysan oo laga soo ururiyay maamul goboleedyadii hoostigay boqortooyadii Furus oo xaruntoodu ahayd dhulka haatan loo yaqaan Iiraan. boqorku waxa uu tegi jiray maamulada gobolada isagoo ku wargelinayay in sanadkan cashuurta laga rabo ay tahay 1,000 nin oo hubeysan waxaana suuragal ahayd inuu meelo kala duwan ka helo rag la ciidameeyay kuwaasi oo gobollo kala duwan laga keeni jiray luqado iyo dhaqamo kala duwan oo watay. inta badan dagaalyahanada Farisiyiintu ma xidhneen diraca dagaalka waxayna siteen waran dheer iyo gaashaan ka samaysan looxa tiradoodu waxay ahayd mid 5 jeer ku soo labanlaamisay tirada ciidanka kale ee la dagaalamay. si uu haddaba uga hortago ciidanka baaxaddaas leh Alexander waxa uu muuqatay inuu ku horeeyo hal meel oo ahayd tababarka ay qabeen guutada ciidamada gaarka ah ee Macedonia. Master Dildoy waa taariikhyahan la taliye ka ah arrinta sinamooga ee caalamiga waxaana uu bartay taariikhda iyo hubka ay isticmaali jireen ciidamadii Macedonia. Macedoniyiintu waxay u muuqdeen ciidankii xilligaa qadiimka ahaa ugu hubka wanaagsanaa. waxay ka koobnayd tiro dad ah oo gaadhaysay 256 men arranged 16 across by 16 deep, 6 sarissas, 16 to 18 feet. waxay siteen warma dhererkoodu gaadhayo 5 ilaa 6 mitir markasta oo ay socdaanna waxa adkay in docda laga soo galo suurtagalna uma ahayn cadowgu inay soo hoos galaan amaba dusha kaga yimaadaan meel kastaba ha gaadhsiisnaatee waxay ahayd guuto laga baqi jiray. bishii Oktoobar sanadkii 330 taariikhda miilaadiga ka hor gudooyinkii ciidamadii Macedonia waxay soo nidaamiyeen goobtii dagaalka ee Gargamela. waxay safafkooda ku hagaajiyeen xilli ay ciidamada labada dhinac fadhiisama ka dhigteen goobahooda. waxaa la isu diyaariyey colaadii Gargamela. taasi waxay ahayd tallaabadii isbedelee nolosha Alexander iyo guud ahaanba mustaqbalka adduunka. Farisiyiintu waxay soo diyaarsadeen ciidankii ugu badnaa ee goob dagaal la isugu keeno taariikhda inta la xasuusan yahay ciidanka oo la aaminsan yahay inuu gaadhayay 1,000,000 askar. ciidanka kale watay Alexanderna waxaa lagu qiyaasay 45,000 oo askari oo kaliya. The stakes were high for Darius. Darius waxay haystay warwar ballaaran waayo waxa uu ogaa in haddii lagu jabiyo dagaalka ay suuragal tahay inuu khasaaro oo waayo guud ahaanba boqortooyadiisii. For Alexander, the stakes were high too. sidoo kalena warwarkaa la mid ah waxa uu haystay Alexander waayo waxa uu soo diyaarsaday oo goobta keenay dhammaan wixii rag iyo hub uu haystay si uu jabiyo
boqorka farisiyiinta. wax waliba waxay Alexander u hayaan suuragal haddii uu guulaysto waxa uu noqon doonaa boqorka Furs. haddii la jabiyana waxay noqon doontaa in la dilo 45,000 ee askari ee uu watay dhulka Gareeguna waxa uu halis ugu jiraa in la qabto. boqorka Alexander oo da'diisu xilliga maraysay 26 sanadood waxa uu diyaar u yahay inuu galo dagaal saameyn ku yeelan doona oo xadidi doona mustaqbalka dambe ee dunida. Alexander iyo ciidankiisa oo ka kooban 45,000 askari waxay si fool ka fool u waajaheen ciidankii boqortooyada Furuska oo shanlaab ka badnaa iyaga isla markaana soo tugnaa masaafo aan ka yarayn 5 kiiloomitir. qaybta labaad ee barnaamijkeena ayaynu ku daaqaadi doonaa dagaalka labada ciidan dhex mari doona dhanka ay guushu raaci doonto iyo waxa kala qabsan doona.